Lesson 1 عشركي كوبات A private conversation وذا شيكيسي قاسة. First marka hore listen dhagayso and then kadibna answer waxaad ka jawaabtaa the question su'aasha. Why sababteebu did the writer qoraaga buugan qoray complain uga cawday to the people dadka behind him ee isaga gadaashiisa fadhiyay ama joogay. Last week asbuuci la soo dhaafay aniga went waxaan aaday to the theaterka shineemada amaba theaterka ayaan tagay. I had waxaan haystay a very good seat fadhi aad u wanaagsan. Seat waa fadhi. The play ruwaayadda ama masraxiyadda markaa socotayna was waxay ahayd very mid aad interesting xiisa u leh. Aniga did not enjoy it kuma aanan raaxaysan ruwaayaddaas. A young man sababtoo ah nin dhalinyaro ah and a young woman iyo gabar dhalinyaro ah oo ninkaa la socotay ayaa were sitting waxa ay fadhiyeen behind me aniga gadaashayda kuraasta igu xigta ayay fadhiyeen. They iyagu markaa were waxay ahaayeen talking kuwa hadlaya loudly si cod dheer ku hadlaya oo qaylinaya. I got very angry aad ayaan u carooday xanaaqay. Sababtu maxay tahay? I could not hear maba maqli karaynba the actress jilayaasha masraxa saaran waxa ay sheegayaan. I turned round gadaal baan eegay dhinacaygaan fiiriyay waan isjaleeciyay. I looked at waxaan fiiriyay marka oo aan indhaha ku qabtay the man ninka and the woman iyo naagtii gadaasheeda fadhiyay angrily ayaan si caro leh u fiiriyoon indhaha ku shiday. They laakiin iyagu did not pay any attention wax intibaa ah ima aanay siinba oo inaan fiirinayay in kale midkoodna kuma aanay mashquulin. In the end ugu dambayntii marka I could not bear it waan u dulqaadan waayay sawaxanka iyo buuqa ay igu samaynayaan. I turned round again mar labaad baan is wareejiyay oo eegay iyaga xaggooda. Markaasaan si caro leh intaan joogo waxaan ku yiri I can't hear a word war waxba idinkama maqli karo. I said sidaa baan iri oon ku iri iyaga weliba angrily si caro leh ayaan ereyga u iri. Isla markiiba waxa soo booday wiilka yaraa wuxuu yiri it's none of your business tan shaqadaada ma ahan. The young man ninkii yaraa ee gabadha la socday baa sad yiri sidaa igu yiri aniga rudely weliba si kibir leh ayaa wuxuu igu yiri this is a private conversation tani waa sheeko khaas ah oo aniga iyo gabadhan naga dhaxaysa wax ku yaala maha adiga oo kale.